magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa maanta laga xusay xuska maalinta naasnuujinta ilmaha ee 1 ilaa 7 August waxaana xuska maalintan iska kaashaday wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale hay'adda Save the Children waxaana munaasabadan ka soo qayb galay barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale marti sharaf kale ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadani iyagoona ka waramay ahmiyadda ay maalintan u leedahay hooyada iyo sidoo kale ilmaha waxaana ka mid ah hadaladoodii haddaynu dib u milicsano nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaynu ognahay carabtii jaahiliga markii aanay diintu soo degin nabiga sallallahu calayhi wasallam dhowr dumar ayaa nuujiyay waxaana loo diray waliba baadiyaha iyadoo oo markaa caafimaadkiisa aad iyo aad loo ilaalinayo markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diinta soo dejiyeyna waxa uu ina faray inaynu nuujino oo hooyada ay nuujiso ilmaheeda 24 bilood inaga ayaa gacanteena ku dila inaga ayaa cudurka u soo iibina inaga ayaa carruurteena maskaxda ka dila waayo waad aragteen imanka carruurteena inta badan naxariis ma laha waa kuwa moobilada dadka ka qaadaya mindiyaha daraya bal haba ka qaada moobilka muxuu mindida u daraya waxa weeyaan naxariis la'aan naas baanu jaqin silic buu ku koray darxumu ku koray waalidkii baan dan ka lahayn sida aawadeed bay u timin naxariis la'aantu marka waxa halka ugu jira nafaqooyin badan oo naaska marka ibta soo saaran kuwaas oo ilmaha korinaya oo u diidaya fuuqbaxa hadhow waynu ognahay naaska caanaha ku jira waxay ka kooban yihiin macdan biyo iyo caano sida uu soo kala horeeyana waynu ognahay waxa ugu horeeya waa biyaha hooyooyinka Soomaaliyeed waxay siiyaan naaska ilmaha inta u horeysa marka ilmahaasi biyaha nuugo ayay naaska ka qabtaan oo kala siiyaan naas nuujintu waxay faa'iido u leedahay qaranka waayo qof aqli leh oo xaq waxbarashada ku fiican hadduu dhasho waxa laga yaabaa inuu bulshada wax u taro oo la dhaho maalmaha kunka maalmood ee ilmahaas noloshiisa ay muhiim ka tahay in la safeef gareeyo ama la badbaadiyo ugu dambeyntii munaasabadani waxaa ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer Aadan Cilmi Diiriye Aadan Malay iyagoona ka waramay ahmiyadda ay maalintani ay leedahay waxaana ka mid ah hadaladoodii marka waxa weeyaan naasnuujinta waxa ugu muhiimsan 3 shay ilmuhu markuu dhasho 30 milyan u horeeya waa in caanaha laga dambarka la siiyaa talabaad waa in 6 bilood ee hore aan waxba lagu darin ee naaska qura ilmaha la siiyaa ta waxa weeyaan inta saddexaad waa in ilmaha ugu yaraan 2 sano naaska la nuujiyaa markuu bisha 7 galo waa in abaabinta loo bilaabaa kadibna 2 sanadood naaska la sii nuujiyaa moodaa hooyooyinkii hore iyo hooyooyinka maanta inaana isku mid ahay runtii xagga naas nuujinta marka laga hadlayo marka waxaan rajeynayaa insha Allah taala hooyooyinka dambe ee aqoonyahanka waliba ah ee wax badan runtii og diiniyan iyo maadiyaba inay ku dadaalaan biidinillaahi alkariim maalinta naasnuujinta ilmaha ee 1 ilaa 7 August ayaa laga xusaa gobolada dalka iyo deegaanada Soomaaliland Abdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Camar iyo Cabdirasaaq Aadan Cabdilaahi telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Burco.